waxa agteeda fadhiya abwaanka daada yar waxaan jecelahay abwaanku bal inuu inoo sheego magaciisa halkuu ku dhashay iyo sanadku dhashay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye cabdi nuux ducaale goobtan ku dhashayna waa Hargeysa taariikhdan dhashayna waxa weeye 1989 abwaan cabdi nuux ducaalow waxaad tiri suugaantaada qaar ka mid ah ayaan halkan ku haynaa oo la yiraahdo suugaanta saameel xilligee baad dhalisay oo bal wax nooga sheeg iyo fikirkii iyo xilliga ahayd adigu 2015 buu ku eega waan gartay gabaygaas wuxuu ka hadlayaa waa duco wuxuu isugu jira adigu eraab siyaasadiinta iyo wadaadada iyo dhalinyarada iyo adigu dhowr marxaladood taabanaya waan gartay magaciisana waxa la yiraahdaa saameel waxaan jecelahay saameel abwaan cabdi nuux ducaale oo ku magac dheer booba Soomaha inaad noo mariso bal gabayga oo bulshadana aad u mariso bismillaahir rahmaanir rahiim sidaan buu ku bilaabmaya gabaygi indhaweyd samayntiisa gabay ima qaban saar waa taasaayo uu ka tagay sahmintoodii samaanteeda waa tan murtida saami u lahaa asifeeyo caawana taxiyo gabayga saameel waa sifaada dunyadu dhakoy waana dhowr subax ifkuna waa salleele aakhiray sababitaalla addoon walibana wixii uu sitaa saacad loo sudhee qof kastaba sidii khayr ku jiro saatir hawnuur afartaa sifeeye haddaan sadayar raacsiiyo sidii uu jamaalucud ku yimi iyo sababtii loo siiyey sooriye iyo wuxuu maal baxshay ee la kala siistay xalfadihii sabootiga ahaa waa sawran yihiin saxiix iyo heshiiskaa dhexee gacanta loo saaray suuldaariya inuu mar kale siidhi daba qaato faysal labasadoonkaa xune saatir hawnuur sifo kalena waan soo arkay kaana balansaafo dharana siduu maanta yeel lagu safaynayo riwaayadu abwaan horaysan dahay sababna sheegaysa waa soo noqnoqodii cali sugulle siduu u muuqda toban sano siyaada u dheer tiradu saaraaye haddii uu saakana xusbigan leeyahay aad u soconaya ariyo ninkii geel soofiyaa sooma wada hoyne haddii uu mid sugo kii kala seegay xeradii ee inuu labada meel uu saldhiga saatir hawnuur sifo kalena waan soo arkay kaana balansaafo nin 9 jiray waa inuu sama ku baaqaayo waa inuu salaadaha alliyo soonta badiya sabab waa inuu akhriyo sahay u haysta kolse hadduu siyaasada dhex galo seegii marinkiiye waa inuu qabyaaladaha siloon iyo xumaha suurshaa waa inaanu sokeeyay xigtada sinin maal qaran sabab waa inuu akhriyo sahay u haysta isiilayna waxay sheegayeen saayid buu rabay sida maanta hawshan uga wacan saatir hawnuur sifo kalena waan soo arkay kaana balansaafo culimadan iswada seegtay ee cadhadu saamaysay sahwiga nimankaa ku riday dadkii sugayay qiilkooda sifihii rasuulka iyo sharcigu saanamuu farine inay dhaqankii gaalada sitaan inay suryo qudha inay diintu tahay saatir hawnuur sifo kalena waan soo arkay kaana balansaafo inamadan surwaalkii baxshay sinaha qaymuuje ee suuraddii islaamka bedelee soohay timahooda sifihii rasuulka iyo sharcigu saanamuu farine inay dhaqankii gaalada sitaan saatir hawnuur sifo kalena waan soo arkay kaana balansaafo hablahan saqaafee barhkood suuqa miranayo saqda dhexe habeenkii kuwaa seexashada diiday suryadii kastaba kuwaasaa wada taagan sunnihii rasuulka iyo sharcigu saanamuu farine inay dhaqankii gaalada sitaan saatir hawnuur waxba yaanan saaf gabayga iyo sii waduun oo dhan waxba yaanan suugaanaan xulay idinku soo horgeyn waxba yaanan saakiyo berriba ararta saarnaane sidii roon allaha waaxidi hayna solo siiyo daawadayaal weli halkaad naga daawanaysaan waa youtube-yadii aan idiin sheegnay ee yaasiin balbalaashay youtube tibintii waa cabdiweli awdiriye guleed weli bartankaan kaga jirnaa balse
waxaan doonayaa bal sugaanta gabay aar la yidhaahdo soo maaha inuu abwaan cabdi nuux ducaale oo ku magac dheer boobe bal uu inoo sheego. cabdow gabaygii aad weydiinaysay iminka sidan buu ku bilaabmayaa. in dhoweyd afkaartiisa gabay eeg ismaan odhan waa taan afkaygaba ka jaray odhashadiisii waa taan albaabkaba u xidhay ilihii geeraare aradkii ku yimid murtida aamusoo naca iminkana waxbaa igu irbeen maba idhaahdeen anasdeeya caawana tixbaan aadmiga u sidee silsilad weeye aashaa hadal aad u qara weyne waana aragti dheeryiin raggii soo abaabulaya anna sheekha kama gaabiyo ee waanag dhigaya afartaa sidii roobankoday aradka mawdeeqay abwaaniyo indheergarad sidii ma ugu iishaaday arbow caamir iyo weerar baan ehel wadaagnaayo halkii ay odayadii hore dhigeen ararta suugaanta sayidkii intuu yidhi ama ismaaciil baa leelihii af lama daaliye iniq ma gaadhsii adhiga iyo geelaba haddaan ayda lagu foofin oo lagu adkeeyoon xeryaha ooda laga qaadin anfac kama heleen odayada iyo ubadka haysta haddayse abaar xumi dhacduu baadanfaca waayo afar iyo kolkuu 30 qodee loo arxami waayo ayaantaad irmaankiiyo nargaa eegi kari weydo ugubkii candhada geejiyey markay awrtu socon weydo doolliyo afmeer korkay ceelalyadu aado ayaantuu ilaahay roob u shubay aradka maasheeyo ammaantiisa wax yeelan jira erakii dhaqay islaamkuna siduu maanta yahay waa allow sahal rasuulkii ilaahay dirtay allahumma salli wasallam rasuulkii ilaahay dirtay uduga loo yeelay 40 markuu jiray ee amarka loo dhiibay iqra yidhi intuu malagu yimi aayaddu siday isaga axkaamtiiyo sharciga uurka loo dhigay adduunkuu mas-uulkaba ahaa idil ahaantii asturaadda ee bahayey amarkii gaadhsii ma ammaanin gaaladu jeer woodaha u rogay uluhuu la dhacay bay kufrigu weli loo ooyaan ee england iyo ameerikaba haddayna ataageen islaamnimo ninkii doonaya u kaala argudo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saas ku dhayn daawadayaal waa gabaygii ama sugaantu inoo tirinayay abwaan cabdi nuux ducaale oo ahaa saameel iyo aar oo ka hadlayey midna anshaxa midna diinta islaamka oo aad uga hadlayey waa anigoo ah cabdiweli awdiiriye guuleed oo idiin soo tabinayey waxaad si toosa uga daawan doontaan tabiyemedia.com youtube-ka yaasiin balbalaashe iyo higsade togdheer news.com waa tabintii cabdiweli awdiiriye guuleed iyo editingkii farsamadii yaasiin balbalaashe waxaanu leenahay abwaankii abwaaniyad halka salaamaysaa. waxaan salaamayaa horta ummadda islaamka oo dhan siiba asxaabtayda gaarka ah axmed maxamed nuur dhako oo abwaanaysna geeddi cabdilaahi jaamac maxamed xaashi mukhtaar yuusuf adugu asxaabtayda oo dhan dal iyo dabadba meel kalsay kala joogaanba annaguna waan ku salaamaynaa tan iyo haddii insha allah aynu ku kulmi doonaba barnaamijyo kale waxaan dhammaan bulshada kaga tegaynaa na daawanaysa waxaan leeyahay waa cabdiweli awdiiriye guuleed iyo editingkii farsamadii dubaridkii yaasiin balbalaashe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.